runtii sharaf weyn bay ii tahay maanta inaan si gaar ah u casmo aqoonyahanka oo aan aaminsanahay inaan bahdan ka tirsanahay ay tahay saasaan u doortay saasaan ugu casumay maanta inaan kulankan ku wada tashanno oo su'aalo isku dhaafsano oo aan ugu soo gudbiyo fikirkayga iyo qorshahayga intaa kadib rag badan baa jira aan isgaranayn magacaygu waa Ismaaciil Faarax Yuusuf maanta caaway sharaf weyn bay ii tahay inaan hortiina imaado inikoo ah labeentii iyo aqoonyahanadii oo haysta professional kala duwan oo qaybtooda ay dhaqaatiir yihiin oo qaybtooda ay professor kala duwan yihiin runtii sharaf weyn bay ii tahay waxaana u casumay iyagoo ah aqoonyahanka kala duwan caaway inaan halkan ugu soo gudbiyo codsigaas oo ah inay aqoontooda iyo taladooda igu taageeraan anigoo ah aqoonyahan ka tirsan iyaga una tartamaya kursiga xildhibaanka golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ee lambarkiisu yahay hoob 142 mudanayaal haddii aniga aan kursigan ilaahay igu guuleeyo waxaan ballan ka qaadayaa inaan ka shaqayn doono qarannimada iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliya inaan ka shaqayn doono wada shaqaynta dowladda federaalka ee dowladda xubnaha ka ah si dalkeenu horumar u gaaro waayo dalkeenu wuxuu u baahan yahay maantay in ciidamadii la dhiso in adeegii bulshada kor loo qaado in waxa weeye khayraadkii la soo saaro waxyaalahaas oo dhan wax u taagan yihiin oo ku caqabad ku ah isfahan la'aanta dowladaha ka jirta marka waxa ugu horeeya oo aan qaban doono waxay tahay in dowladaha federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ay wada shaqeeyaan midda labaadna waxay tahay waxaan ballan qaadayaa inaan bulshada aan ku matalo haddii aan kursiga ku guulaysto inaan ugu adeegi doono si daacada oo hufan oo ku dhisan cadaalad iyo sinaan aanan la wada shaqayn doono cid kasta oo ka mid ah bulshadaas hadday aqoonyahan yihiin hadday siyaasiyiin yihiin iyo hadday dhaqan yihiinba dhammaantoodba aanan qolo iyo gurub u samayn doonin aniga sideedaba waxaan ahay nin bulshada u dhaxaya nin arrimaha bulshada ka soo shaqeeyay nin aaminsan dadku waxay qiimaha ay leeyihiin iyo isku duubnida wax lagu qaban karo si dalkeena iyo deegaankeena aan u gaarno himilooyinka aan leenahay waxaan ka shaqayn doonaa isku duubnida beelaha cali islaam haddii ilaahay midda saddexaad oo aan ka bilaabi doono waxay tahay ilaahay ugu guuleeyo waxaan la shaqayn doonaa oo si dhow la shaqayn doonaa saan isu kaashano senatarka dooran cabdisamad abwaan haddii ilaahay qato si aragti ka duwan aragtii hore aan u qaadano oo dadkayga iyo dalkayga u tarno midda saddexaad waxaan qaadan doonaa talooyinka aqoonyahanka maanta aan halkaas isugu keenay ganacsatada iyo siyaasiyiinta anigoo aan dhayalsan doonin aniga oo hor iman doono waqtiyada aan firaaqada helo haddii ilaahay qadaro midda afraad waxaan dhiirigelin doonaa mashaariicda isku tashiga ee deegaamadeena ay ka wadaan ganacsatada iyo aqoonyahanku oo maantay ah kuwa dhaxalgalka ee deegaamadeena ka hirgalay ilaa xilliga aan kuu sheegay assessmentiga aan sameeyey waxyaalaha ka hirgalay waxyaalaha isku tashiga lagu qabtay xilligaas iskuul lama jirin qandala aan malayno ka jiray baliga kama jirin timirshe kama jirin xiriirna kama jirin goobo caafimaad kama jirin laakiin hadda dhammaan iskuulaha ka jira laba goobood caafimaadna way iga dambeeyeen waa la qabtay isku tashi baan loo qabtay inta badan marka waxaan dhiirigelinayaa mashaariicda isku tashiga laga wado kana qayb qaadanaya hogaamina doona haddii ilaahay anigoo midaynaya dhammaan ganacsatada iyo siyaasiyiinta haddii ilaahay igu qadaro midda shanaad waxaan isku dubaridi doonaa oo u qareemi doonaa insha allahu tacaala iskuna dayi doonaa inaan midayo dhammaan xildhibaanada gobolka bari ka soo baxay si gobolkan dhibaatada horumar la'aaneed ee ka jirta ee ah wada la'aanta iyo adeegyada bulshada oo liita loo taabageliyo waayo waxaan ognahay isku duubniba wax lagu qaban karaa aniga kaliya wax ma qaban karo waxaan rajaynayaa inaad doorkiina qaadan doontaan insha allahu tacaala oo la arki doono sanadkan natiijooyinka hore ka duwan si bulshadeenu u hesho horumar iyo isku duubni ugu dambayntii
igana raalli ahaada haddaan ku dhihi ugu dambayntii waxaan intiina halka timi iyo inta soo wacday oo cudur daaratay howlaha badan ay ku yimaadeen uga mahad celinaya mar labaad ka soo qaybgalkiina waxaana mar labaad ka codsanayaa inay la shaqeeyaan oo igu maalgashadaan aqoontooda iyo taladooda maanta anigu bahda aqoonyahanka ka mid ahay haddii aan kursigaas ku guulaystona dadka ugu dhow oo talooyinka aan kala shaqayn doono ayaa ka mid tihiin insha allahu tacaala midda labaadna waxaan leeyahay waxaa dhici karta musharaxiin badan baa jirta qayb taageertan halkan oo waxay la rabta iyo qayb rag kale oo la shaqaynaysa oo saaxiibada ka soo qayb gashay muhiimaddu waxay tahay haddii aniga layga jaanis fiicnaado cidda aqoonyahanku u aragtan baan kala shaqaynaya inta marka saaxiibadaya oo waxa way la shaqaynaysana waa mahadsan yihiin inta saaxiibadaya oo kale saaxiibadaya watan waa mahadsan yihiin fikirkooda u madax bannaan yihiin waxaan si isku ognahay war haddii guushu xaggiina noqotana waa la shaqaynaya hadday xaggayga noqotana soo raxday la shaqaysan oo hiilisaan intaas aan ka codsanaya waana mahadsantiin